kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha iyo qadarinta inaga mudan meel kastoo aad joogtaan iyo weliba si kastoo noola socotaan halkani waa Suldaanka TV waxaad uga barateen Suldaanka TV warar saxan oo xaqiiqda ku salaysan iyo xogihii ugu dambeeyay ka jira Soomaaliya caalamka qodobadan warka ku eegi doonana waxa ka mid noqonaya Villa Soomaaliya oo fishileysay qorshe ay si wada jir ugu heshiyeen Siciidan iyo Axmed Madoobe kadib markii la ogaaday inay dib u dhigeen kuraasta gobolka Gado waxaan eegi doonaa 16 kursi ee Gado oo haris laga badbaadiyay iyo hogaamiye lafta gareen oo kala furay Siciidan iyo Madoobe kulamadii ka dhacay Kismaayo oo ay wada yeesheen hogaamiyaha Jubbaland iyo sidoo kale hogaamiyaha Koonfur Galbeed maxaad kala socotaa heshiiska ay gaareen lafta gareen iyo sidoo kale hogaamiye Madoobe doorkii dani oo la soo warinayo in biyo qabow lagu shubay iyo tallaabo aan horay loo arago qaaday hogaamiyaha Koonfur Galbeed warka ayaan ku soo gudbin doonaa wararka kale aan idin waxa ka mid noqonaya gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo la sii ogaaday iyo hogaamiye lafta gareen oo loo saxeexay inuu qaato kursiga afayeenka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya nabad iyo nolol oo shax lama filaan dejisay iyo doorkii mucaaradka oo daaqada ka baxay waxaan idin soo gudbin doonaa gudoomiyaha cusub ee golaha baarlamaanka Soomaaliya ee golaha shacabka la soo warinayo in loo caleemo saarayo hogaamiyaha Koonfur Galbeed kadib heshiis lagu saxeexay Villa Soomaaliya muxuu yahay heshiiskaas warka ayaan ku soo gudbin doonaa dawladda Kenya waxay qarka u saaran tahay inay taageerto madaxweyne Farmaajo kadib markii guule istabajooga ay ka gaartay dawladda federaalka Soomaaliya waxaan idin soo gudbin doonaa warbaahinta Kenya oo tabinaya warbixino la yaab loo ku sheegayaan in Uhuru Kenyatta uu qarka u saaran yahay inuu taageero madaxweyne Farmaajo muxuu yahay qorshaha cusub ee dawladda Kenya afar guulo wax ku oo dawladda Soomaaliya ka gaartay dawladda Kenya iyo sidoo kale dalalka caalamka oo qiray in laga adkaaday Kenya warka ayaan ku soo gudbin doonaa iyo sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa xisbiga himilo qaran ee Sheekh Shariif oo banaanka soo dhigay khilaafka ka dhaxeeya mucaaradka iyo sidoo kale Shariif oo la soo warinayay in xisbigiisu uu si toos ah uga baxay kadib markii la isku fahmi waayay qodobada qaar ee ku saabsan qaabka loo wajahayo doorashada golaha shacabka iyo tan madaxweynaha dalka saaxiibada qiimaha iyo qadarinta inaga mudan halkani waa Suldaanka TV subscribe saara Suldaanka hadii aad ku cusub tahay sii share garay oo muuqaaladan saaxiibada gaarsiisay ay kula daawdaan like iyo commentiga hanaga iloobin iminkana u diyaar garooba qodobadii aan dul maray oo intaasi ka faahfaahsan aan ku bilowno warkeena waxaynu ku bilaabaynaa warkeena ila kala duwan oo markaasi Suldaanka TV si toos ah xogtaan u siiyay ayaa waxay sheegaysaa in Villa Soomaaliya ay fishileysay qorshe ay si wada jira ugu heshiyeen hogaamiyaasha Jubbaland iyo Puntland kadib shirkii ka dhacay Garowe bishii hore kaasoo la sheegay in markaasi doorashada kuraasta gobolka Gado 16 kursi ay ku heshiyeen Daniya Madoobe in dib loo dhigo lana doorto gudoomiyaha golaha shacabka 16 kaas kursi oo ka maqan markaasi doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya heshiiskaas ayaa la sheegay inuu yahay kan kaliya ee Villa Soomaaliya looga badbaadi karo kuraasta Gado inay la wareegto waxana qalinka lagu duugay in 16 kaas kursi uu Axmed Madoobe dib u dhigo marka la soo gabagabeeyo xildhibaanada kale ee dawlad goboleedyada kadibna la doorto gudoomiyaha golaha shacabka iyadoo markaasi sabab uga dhigaya in khilaaf uu ka jiro kuraastaas sida darteedna dib loo dhigay taasoo ka dhigan marka xildhibaanada kale natiijadooda la ogaado ee markaasi ka soo baxa Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabelle Puntland iyo sidoo kale Kismaayo in doorashada markaasi la qabto 16 kursi hadii looga awood badiyo ee xildhibaanada ka soo baxay dawlad goboleedyada kalena loo daayo Villa Soomaaliya hadii markaasi dani uu isku arko inuu awood leeyahay xildhibaanadaas uu xoog saaro dhaqaale iyo sidoo kale dheefba uu ku bixiyo sidii uu heli lahaa kuraastaasi qorshahaas ayaa lagu gaaray magaalada Garowe gobolka Nugaal ila kala duwan ayaa noo sheegay in Villa Soomaaliya durbaba ay ku war heshay heshiiska lagu gaaray Garowe iyo qorshaha ay dejiyeen Axmed Madoobe iyo Siciidan kaasoo sababay in safar degdeg ah hogaamiyaha Koonfur Galbeed uu ku tago magaalada Kismaayo gobolka Jubbada Hoose fariin laga waday Villa Soomaaliya ayaa la hordhigay hogaamiyaha Jubbaland sida aynu xogta ku helayno 16 kursi ee lagu dooranayo Garbaharey 3 kamid ayaa laga siiyay hogaamiye Madoobe waxaana la soo warinayaa in 13 kursi ee kale loo daayo Villa Soomaaliya heshiiskaas oo la sheegay inuu ka yimid Villa Soomaaliya hogaamiye Madoobe ayaana soo dhaweeyay sida aynu xogta ku helayno waxaana la siiyay ballanqaadyo kale oo cusub oo ay wada saxiixeen Axmed Madoobe iyo Siciidan sida aynu xogta ku helayno
kulankii gaarka ay Kismaayo ka dhacay wada yeesheen lafta garan iyo sidoo kale Axmed Madoobe ayaa markaas xogo kale oo kala duwan laga helay kulanka labada hogaamiye waxay uga wada hadleen arrimo kala duwan oo ay kamid yihiin amniga siyaasadda ganacsiga doorashada dalka gaar ahaan golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad kulankan ayaa waxa looga saarinsaday xoojinta wada shaqaynta ka dhaxaysa maamulada iyo sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha abaaraha ka jira deegaanada Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Jubbaland Cabdicasiis Laftagareen ayaa Axmed Madoobe uga mahad celiyay soo dhaweyntiisa ballaaran ee shacabku ay u sameeyeen iyo sidoo kale kulankii ka dhacay Kismaayo kulamada dhaxmar labada hogaamiye Madoobe iyo sidoo kale Laftagareen waxa qayb ka ah mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala tirsan labada dawlad goboleed Koonfur Galbeed iyo Jubbaland baarlamaan xubno u sharaxan kuwaas oo doonaya in ay ka faa'iideystaan fursadda kulankan iyo sidoo kale inay taageero ka helaan labadaasi dawlad goboleed wararku siday sheegayaan fariinta ka socotay filla Soomaaliya ayaa farta laga saaray hogaamiye Madoobe waxaana arrintaas ay meesha ka saaraysaa heshiiskii lagu gaaray Garowe oo u dhaxeeya Axmed Madoobe iyo Saciid Dani xogaha qaar ayaa sheegaya in hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ka walaacsan yahay safarka Koonfur Galbeed una arko mid isaga lagu dhabarjibinayo laguna wiiqayo heshiiskii uu la gaaray hogaamiye Madoobe maadaama dhaqaalo iyo sidoo kale ballanqaadyo cusub lagu kala furfurayo Axmed Madoobe iyo Saciid Dani qodobada kale ayaan eegaynaa gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ayaa la sii ogaaday iyadoo Laftagareen loo calaameeyay afayeenka baarlamaanka federaalka Soomaaliya inuu noqdo sida aynu xogta ku helayno nabad iyo nolol ayaana shax lama filaan dejisay oo ku saabsan in doorka mucaaradka daaqada laga tuuro hogaamiyaha golaha shacabka ee soo socdana uu noqdo hogaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen xogaynu helna ayaa sheegaysa in filla Soomaaliya lagu saxiixay heshiis laba geesooda oo u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo Laftagareen kaasoo Laftagareen la sheegay inuu markaas ku qaatay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sida darteedna oo noqdo xildhibaanka ugu dambeeya ka soo baxa Baydhabo wararku siday sheegayaan Laftagareen aad buu u danaynayaa inuu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada waxaana ila kala duwan noo sheegeen in arrintaas sida uu ku noqolayo ay u fududahay hogaamiye Laftagareen maadaama baarlamaanada ka imaanaya dawlad goboleedyada taageersan filla Soomaaliya ay yihiin kuwa markaas si weyn loo maamuli karo iyadoo la soo warinayo in arrintaas ay tahay mid muhiim u ah madaxweynaha talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wararkana kale ayaan ku dagalaynaa warkaas dib ayaan ka eegi doonaa haddii arrintaas ay soo baxdo dawladda Kenya ayaa qarka u saaran sida ila kala duwan ay sheegayaan aba warbaahintuba ay tabiyeen Kenya inay taageerto madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii ay u soo baxeen cadeymo waaweyn oo ku saabsan in madaxweyne Farmaajo uu meel uga socon Soomaaliya doorashada dalkana uu qarka u saaran yahay inuu ku guuleysto kadib markii dhowr waji oo kala duwan ay kula macaamishay madaxweyne Farmaajo balse ay wax uga weysay dawladda Kenya warbaahinta Kenya ayaa tabinaya in afar guul oo waaweyn laga gaaray Kenya oo dawladda Soomaaliya ka gaartay muddadii uu madaxweyne Farmaajo uu hogaaminayay Soomaaliya taasoo ka dhigan mid warbaahintu ay qireen guulaha Kenya laga gaaray ugu horreysay kiiska badda joojinta qaadka Kenya iyo sidoo kale in meesha laga saaro faragelintii Kenya ay ku hayso Soomaaliya aba doorashooyinka iyo sidoo kale arrimaha siyaasadda Soomaaliya qorshahaas ayaa noqday qorshe warbaahintu ay qiraan in looga adkaado Kenya sidoo kale waxa la sheegay in maamulka Jubbaland iyo xuduudaba markaas laga saaray ciidamadii daacadda waa Kenya oo hogaamiye Madoobe halkaas uu ku hayay sidoo kalena dawladda Kenya lagu dhabarjabiyay aaggaas sida markaas ay warbaahintuba tabiyeen warbaahinta Kenya waxay qarka u saareen inay taageeraan madaxweynaha talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasoo u muuqata mid ay si weyn u taageerayaan ugu dambeyntii xisbiga mucaaradka Himilo Qaran ayaa markaasi ka dhawaajiyay kala tagga mucaaradka iyo waxa sababay xubno markaasi kamid ah xisbiga Himilo Qaran oo kamid yahay gudoomiye Suleymaan Maxamuud Xaashi oo warbaahinta la hadlay ayaa shaaciyay inaysan marnaba raalli ka ahayn doorashada kuraasta qaar ee boobka balse kuraasta kale ay taageersan yihiin sida darteedna murashaxiintu aysan isku mowqif ku ahayn sida markaasi ka dhawaajiyay gudoomiyuhu arrimaha doorashooyinka Soomaaliya waxa uu ka dhawaajiyay inay jiraan murashaxiin guud ahaanba diidan doorashada golaha shacabka in markaasi ay sii socoto iyo murashaxiin doonaya in la saxo qaladaadka ku jira taasoo ku sheegay in xisbiga Himilo Qaran oo marnaba raalli ka ahayn in doorashada meesha laga saaro taasoo ku sheegay mid siyaasiyiinta kale ay soo jeediyeen saaxiibada qiimaha iyo qadarinta inaga mudan warkiina halkan ayaan ku soo koobayaa nabadgelyo